Assalaamu calaykum. Muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa diyaaradaha la keenay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Maalmihii u dambeeyay baraha bulshada waxaa qabsaday warar sheegaya in diyaaradda aadka caanka uga ah wadamada Yurub ee Barakhdar TB2 la keenay caasimadda Muqdisho. Sababaha loo keenay waxaa loo tafsiiriyay sababo badan, laakiin sababaha ugu weyn ayaa waxaa la sheegay in ay rabto dowladda Turkiga inay ku ilaalsato safaaradeeda ku taashay magaalada Muqdisho, qaas ahaan degmada Cabdicaziz ee gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaa la sheegay in diyaaradan loo keenay in ay ilaaliso xirada militariga ee ugu weyn ee banaanka ka dhisatay wadanka Turkiga, taasoo ku taasho duuleedka magaalada Muqdisho. Laakiin maxaa ku ognahay diyaaradda Barakhdar TB2 waa mid ka mid ah diyaaradaha ugu casrisan hadda. waxaa soo saaray wiilka sodoh u yahay madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan. Diyaaradan ayaa waxay soo jiidatay caalamka sanooyinkii ugu dambeeyay iyo sanadkii hadda la soo dhaafay 2019 iyo kan hadda dhammaan 2021. Diyaaradan ayaa waxaa la sheegay inay ka mid tahay diyaaradaha aadka raqiiska u ah, waxtarkoodana aadka u badan yahay. waxaan soo qaadan karnaa dhacdooyinkii ay diyaaradan suubisay 2021 2019 iyo 2020. waxay taariikh ka dhigtay Suuriya xilli dowladda Suuriya ay taageero Ruushka ay dileen 30 ka mid ah militariga Turkiga ayaa diyaaradaha Barakhdar TB2 ay waxay ku qaadaan weeraro culus, ayagoo isla markiiba burburiyay meel kaste oo hub u yaalay dowladda Bashar al-Assad. wax raadaar ma qaban, raadaarka Ruushku suubiyay casriga muu qaban diyaaradahan. markaas waxay ku qasabtay dowladda Ruushka inay heshiis la gaarto dowladda Turkiga, taasoo markii hore ka cagajiisay. laakiin diyaaradaha Barakhdar TB2 ayaa awooddaas siiyay in dowladda Turkiga ay heshiis la gaarto midda Ruushka uu hogaamiyo Vladimir Putin. sidoo kale Liibiya waxay ka geysatay duqeymo aad u culus, kuwaas ay ku beegsanaysay ninka aadka u raadinaya dowladda Turkiga, kaasoo ka soo horjeeda dowladda caalamku oo aqoonsan yahay Liibiya. Haftar oo ah mid ka mid ah kuwii la soo shaqeeyay Gaddafi ayaa wuxuu rabaa in uu maamulo wadankan si awoodna uu ku maamulo. laakiin dowladda Turkiga markii la gaartay heshiis ay kala saxiixdeen Rajab Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Liibiya, dowladda Turkiga ayaa waxay u soo dirtay diyaaradaha Barakhdar TB2 ciidamo militariya iyo kuwo kale oo aad u hubeysan. markii hore Haftar wuxuu ekaa inuu awood kula wareegi karo gabi ahaanba wadanka Liibiya, qaas ahaan caasimadda Liibiya ee Tripoli. laakiin xaaladda way isbedeshay markii diyaaradaha Barakhdar TB2 ay weeraro culus ay ku qaadeen. diyaaradan ayaa waxaa la sheegaa inay ka mid tahay diyaaradaha ugu fiican ee caalamka hadda la adeegsado, sababtoo ah waxay suubinaysaa duqeymo aan raadaarku u qabanayn. sidoo kale waxay suubinaysaa inay soo baarto sirdoon ahaanna u dhaqanto. waxay baaraysaa saldhigyada military ay dulmarayso wax raadaar ah oo u qabanayn. sidoo kale gobolka la isku haystay Armenia iyo Uzbekistan waxay ka fulisay mid ka mid ah dagaaladii ugu culusaa, laakiin guusha ay ku raacday wadanka Uzbekistan, kuwaasoo 30 sano laga haystay gobolkaas ay haysteen dowladda Armenia, taasoo ay taageerto Ruushka. haddadan aan joogno dowladda Ethiopia ayaa waxay adeegsanaysaa diyaaradahan Barakhdar TB2. diyaaradahan ayaa waxay u adeegsatay fallaagada ka soo horjeeda dowladda Abiy Ahmed uu hogaamiyo. dowladdan uu hogaamiyo Abiy Ahmed ayaa waxay daar kula jirtaa TPLF oo ka mid ah ururaha ugu awoodda badnaa gobolka Afrika, ayaa markii dambe waxay isku bedeleen kuwa ay ka soo horjeestaan dowladda uu hogaamiyo Abiy Ahmed kadib markii doorashooyinkii dib loo dhigay. laakiin markii hore awood ayay ugu faaneen dowladda ayadoo wax aan diyaarada ay adeegsan, laakiin kadib waxaa la arkay dowladdii xoog looga wareegay meel kasta oo ay haysatay. laakiin markay imaadeen diyaaradaha Barakhdar TB2 hal mar jawiga uu isbedelay. dowladda Ethiopia ayaa waxay suubisay horumar awoodeed ayadoo la wareegtay gobollo ay haysatay awal TPLF. muuqaalkeena u soo laabanay
wararka ayaa waxay sheegayaan in labadan diyaaradood la keenay magaalada Muqdisho inkastoo ay cadeen inay tahay Barakhdar TB2. warar kale oo lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegayaan in diyaaradahan ay suubiyeen howlgalkoodii ugu horeeyay kaasoo ay ka suubiyeen meel ka baxsan Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe iyo Muqdisho. meel ka baxsan intaas ayay ka suubiyeen sida wararka ay sheegayaan, warar lagu kalsoon yahay. muuqaalkeena maanta intaas ayuu ka egahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.